rasaasta qoriga hoobiyaha oo duugoobay iyo walxa kale oo qaraxyada loo adeegsado ayaa laga soo saaray guri ku yaala waaxda xaawataako degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho guriga oo dhismo uu ku socday ayaa laga soo helay hubkaasi oo dhulka lagu aasay wakhti hore waxaana tegey mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir oo saxaafadda u soo bandhigay gumacyada qoryaha hoobiyaha oo duugoobay iyo walxa kale oo qaraxyada loo adeegsado gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tulax ayaa sheegay in rasaasta qoryaha hoobiyaha oo duugoobay iyo walxa kale oo qaraxyada loo adeegsado inay hay-adaha amniga xog ay heleen ay ku soo ogaadeen in ururka al-shabaab ay ku qarsadeen halkaasi gurigan sida naloo sheegay wuxuu ahaan jiray rug ay nimanka argagixisadu ay deganaan jireen baryihii hore lagana yaabo hadda xilliyadii dambe inay siyaabo kala duwan oo qaab deegaan guri ama nolol caadi ah ay uga howlgeli jireen hubkan waa hub hore laakiin waxaa hadda loo isticmaali karaa qaraxyada oo sunta ku jirta inta la furfuro magaalada waxaa arkaysaa dhibaataan looga geysto marka hadda baaritaankii oo socda gurigoo dhan iyo maaragtay qalabka ama wax kaloo hadda ku jira si loo ogaado waa uga mahad celinayaa ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamulka degmada oo si wada jira isaga kaashaday dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahad alle ibraahim dheere gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maxamed cabdulaahi tulax iyo gudoomiyaha degmada howlwadaag mustaf cali khayre ayaa kormeeray goobaha ganacsiga ee ku yaala degmada howlwadaag sida baarubax falaagsi ilaa iyo jidka maka almukarama iyagoona ganacsiga ku yaala wadooyinkaasi iyo jidadka kormeeray kuna lugeynayay suuqyada halkaa ku yaala ibraahim cumar mahad alle ibraahim dheere gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey kormeerka ay ku soo sameeyeen goobaha ganacsiga horta waxaan soo aragnay magaalada dadkeedu ganacsanayo maqaayadihii dukaanadii wax walba ay kala socdaan marka farxad bay noo tahay inaan shacabkeenna aan la wadaagno horumarka ay ka sameeyeen magaalada muqdisho hortii waxaan ku dhiirigelinay inay sii labalaabaan dadaalkooda ganacsi cabdicasiis ibraahim axmed okey tvga universal magaalada muqdisho weli waxaanu ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray magaalada muqdisho qaas ahaan arrimaha amniga magaalada muqdisho ayaa degmada daynile gobolka banaadir waxaa kulan ku yeeshay gudoomiyaha gobolka qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba taliyaasha ciidamada militariga ee dowladda waddanka soomaaliya iyadoo kulankaana lagaga hadlay arrimaha amniga nabadeynta caasimadda soomaaliya muqdisho warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheena cabdilaahi axmed nuur ka dhacay degmada daynile ee gobolka banaadir ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed waxa uu la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana kulanka goobjoog ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada militariga soomaaliya iyo xildhibaan cabdulaahi gaafow maxamuud gudoomiyaha degmada daynile ayaa sidoo kale kulankan qayb ka ahaa kaasi oo looga hadlayey amniga caasimadda gaar ahaan doorka ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin sugidda ammaanka guud ee gobolka banaadir markii uu kulanka soo gabagaboobay ayaa waxa uu horreyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada daynile ee gobolka banaadir waxaan isugu nimid maantay arrimo ku saabsan amniga sidaan uga wada shaqayn lahayn inta badan oo isla afgarannay dhibaatooyinka dhaca oo cadowga ay ku hayaan shabaab shacabka soomaaliyeed sidaan isaga kaashan lahayn aan ka wada hadlaynay waana ku guulaysanaa wada hadalkii insha allah waxqabadkuna waa noogu xigi doonaa gabagabadii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo xildhibaan cabdulaahi gaafow maxamed ayaa warfidiyeenka sharaxaad ka siiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen dhinacyadan saaxiibkay bareysana waxaan warsanahay tan keliya ku ekaanina wajadaasna kaxda iyo madiine iyo ruwaana iyo yakshiid intaana xooggaa la saaro ninka xamar weyne joogo warkiisa waxaa waaye nin daar ku jiro daruur ma arkay roobka dhaxala waa da'ay waa la isxabadeeyey iyo waa la isdilay iyo kama warhayaan laakiin raggan ka warhaya ay dusha u furan tahay ayaa la rabaa gudoomiyu inaan gacan weyn siino degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ku dilay isagoo nabada baxsado degmadaas waxa weeye mas-uul ma jiro mas-uulaa loo samaynaa waxaa ku ballannay hadday taasi dhacdo oo degmadu yacni khalqal amni uu ku yimaado nin sargaalaho militariho cabdibilaashiisa iyo ciidankiisa wata inaa guddoomiye uga dhigayn ballankaan qabno kaas waa
marka si aan sargaal military uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u soo jeedo habeen iyo maalin amnigeeda taasaan ku ballanay. cabdullaahi axmed nuur, universal TV, muqdisho. magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa kulan ku yeeshay culamaa udiinka ahlu sunna. ka qaybgalayaasha kulanka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay fuliso heshiiskii ay la gashay madaxda ahlu sunna, waa sida hadalka u dhigeen. warbixinta ku saabsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray waryaheena Liibaan Cajiib Xaaji. للحاضرين وكل الغائبين والعاشقين عليك. kulankan ay isugu yimaadeen culamaa udiinka ahlu sunna wal jamaa ee gobolka mudug ayaa ujeedkiisu ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqo fulinta heshiis ay la gashay madaxda ahlu sunna ee Dhuusamareeb. kulankan ayaa waxaa isugu yimid dhammaan culimada ugu weyn ee ahlu sunna, waxaana goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug. waxayna sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay taageersan yihiin howlaha ay ka wada gobolada dhexe, balse ay ka dhabeeyaan fulinta heshiiskii hore ee la gashay madaxda ahlu sunna wal jamaa. dhammaan culimadii kulanka ka qayb gashay ayaa sheegay in dowladda ay soo dhaweynayaan shacabka gobolada dhexe, isla markaana ay doonayaan inay fuliso heshiiskii ay gashay intii uu socday safarkii geedi socodka kala guurka siyaasadda maamulka galmudug. ahlu sunna wal jamaa meel ay joogaan ba anugu malihi ma gafaan malihi, laakiin waxaan ku dadaalanaa insha allahu tacaala hadda kuwa noogu sokeeya waxaa weeye galgaduud. haddii ay gafaan oo la yidhaahdo dulmigaasi la yimaadeen, waxaan isku dayaynaa inaan xallinno. haddii ayaga la dulminayana dadka waxaanu sheegaynaa inaan ayaga micigooda nahay. waxaan leenahay kow dowladda Soomaaliya, waxaan leenahay waa in waaninaynaayo dadkaani waa mucaarad ma ahan, dadkaani waa shacabkiinii weeye, waa ladii soo dhaweeyey. annagu waxaan ka mid nahay dadkii ahlu sunna wal jamaa meel kastoo aan joogno soo dhaweyn waa ladii soo dhaweeyey, madaxweynaha la soo dhaweeyey, maamulka ra'iisul wasaaraha la soo dhaweeyey. waxaan leenahay ballankii aad la gasheen ahlu sunna wal jamaa, annagu ahlu sunna wal jamaa nahay, ballankii oofiya oo ilaahay ka cabsadaan idin leenahay, oo ah waa cadaynaynaa 35 xildhibaan ahlu sunno in la siiyo. laakiin maadaama ahlu sunna wal jamaa dalkan amnigiisa ayagu ay sugeen oo amnigiisa intaas dhibaato badan ay ka soo mareen oo dalkan ayaga amnigiba looguba yimid, baa waxa weeye ayagu culamo ahaan ha u soo xuleen weeye ma ahee 11 beelood bay 30 ka dhaxeeyaan ee jufo yeelan karta iyo shakhsi yeelan kara midna ma jiro. waxaan ugu naseexaynaynaa kana codsanaynaa wixii cahdigii iyo ballankii ay galeen oo ahlu sunna wal jamaa ay la galeen inay oofiyaan oo aysan ka leexan. wilaayada iyo saldanada ay hayaan waa ammaano ilaahay weeye. ammaanadana haddaan sidii ay ahayd aan loo gudan waa laga zuulinayaa, waa laga qaadayaa qofka. dhinaca kale kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, waxayna cod dheer ay kula hadleen dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligan ku hoolan dhismaha dowlad goboleedka galmudug. oo nasiib darro ay dhacday ballamihii iyo waxyaabihii dadkan uu u ballan qaaday inaan weli waxba aysan ka suurtagelinin, meel ay ku dambeeyeenna hadda cid sheegi ka dhahaysan jirinin. dowladda galmudug waxaan u malaynayaa waddankuna 13 sanana waxaan ognahay inay ka socon weyday dowladda federaalka. markii ayada loo dhiibay oo maamulkii jiray ayada farta laga saarana inay ka raysaan dooraynay, inay ka darto ma aanan doonin. Liibaan Cajiib Xaaji, TV Universal, Gaalkacyo. ويا داود يا ويلا كان جالس عطان وتلفزيون كعالمي يونيفرسال استوديو هنا مقالة لندن ورمي كان نقصو قاري مقالة جروي حرونتا قبل كنو قال يا شيء إن قلها برلمان كأي معمول دولة قبلات كصوماليات بوتلان كلنا يشين أي وربحنا كجد جيستين قار كم إذا قدية يوجو كهولا نسمعها ودوين كوسكوهرة قيبة كم إذا أما قبلا كترسان دجنا ده هو سماده بوتلان وحنا صدق كلا أي أنصحيان صدق وركي ممكن نقصو قاري شيء جيان وزير عصب أو دوانها مجاعب مدحوينها معمول دولة قبلات كصوماليات بوتلان وربحنا تاني ممكن نقصو قارت مقالة جروي وحنا صدر وريه عبد القادر كينان
golaha baarlamaanka Puntland oo weli ku guda jira kalfadhigoodii 45aad ayaa kulankooda maanta oo ahaa qodobka 8aad ee ajandaha xaaladda wadada Ceel Daahir Ceeri Gaabo warbixin uga dhageystay guddiga dhismaha wadada gacanta ku hayay hay'adda wadooyinka Puntland iyo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf gudoomiyaha guddiga dhismaha wadada Ceel Daahir Ceeri Gaabo iyo qaar ka mid ah xubnaha ayaa waxa ay golaha ka hor akhriyeen halka ay marayso dhismaha wadadan iyo waxyaabaha u qabsoomay. Guddiga ayaa sidoo kale ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka. mudane gudoomiye warbixin ayaa guddigu soo gudbinaya haddii la haydmo laba qaybood u qaybsan qaybta hore oo ah farsamada technicalka wadadu dhismaheeda iyo wixii ku saabsan injineerada ayaa ka warbixinaya. sidoo kale guddigu wuxuu soo gudbinayaa xisaabaadkii soo galay wadada ama guddiga wadadu gacanta ay ku qabteen ilaa ay aantii shaqadu ay bilaabatay ilaa iyo maanta wixii soo galay iyo wixii baxay wax walba wixii ay ku baxeen. hantiintaa leeg 8 milyan oo dollar xoolo yar maaha maxay ugu filaan weyday wadada 8 milyan oo dollar lacag is haysato oo anagana soo gashay waad u jeedaan 140,000 oo dollar bay 40,000 oo dollar bay u baahan tahay 140,000 oo dollar lacag la eegay celceliskiis 53 bilood ee mashruuc lacagta loo ururinayay ma soo gelin marna. dawladda cusub maalintii dhalanaysay madaxweynaha presentation-ka waa noo gudbinay 484,000 sunuud baana lagu lahaa oo deyn ah ayaana lagu lahaa. rag kamida guddiga ayaa waxa dhacaysa marmarka qaarkood lacagta mushaharka markii la waayo inay iyagu bangiyada guryahooda rahmaan qaarkoodna ay inta qaadaan lacag bangiga ka qaadaan oo iyagoo ganacsan lahaa tii ay ku ganacsan lahayd bangiga looga diido deynta wadada la bixin waayo darteed. lacag is haysata waxaana soo galay malyankii dekada Dubai Cabdiwali khayr Allah siiye uu la baxshay. dhinaca kale waxa uu baarlamaanku codka kalsoonida siiyay wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawlayaal u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland. 40 mudane oo fadhiga ayaa si wada jira oo ogolaaday inay mudanayaasha xasaanada siiyaan. ciddii ma jirto cid ka aamusayna ma jirto. sidaa daraaddeed sida dastuurka uu qabo sidaas ayay ansax ku yihiin wasiirada maanta horteena fadhiya ee 6 wasiiri. Cabduqaadir Keenan wararka telefishinka Universal Garowe. magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka socda qabanqaabada barnaamijka tartanka fardaha ee loogu magac daray Gamaan. telefishinka Universal ayaa magaalada Hargeysa wareysi kula yeeshay qaar ka mid ah xubnaha guddiga qabanqaabada tartankaas. warbixinta ku saabsan waxaa Hargeysa inooga soo diray waryaheena Amiin Maxamed Ahmed. tankani fardaha ee la magac baxay Gamaan oo ay qabsoomidiisu ku taariikhasneed 22 bishii 11aad 2019 oo ku beegan Jimcihii hore la soo dhaafay ayaa waxa hakiyay roobab maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Hargeysa. balse waxa hadda dib ugu dhawaaqay mar labaad maalinka uu qabsoomayo tartankani. aadan cabdikariin abyad salibaan maharajaan iyo weliba sakariya haldoor oo ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya qabsoomida tartankani ka cusub guud ahaan Soomaalida. mas'uuliyiintani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay cabasho bulshada uga timidana aqbaleen taasi oo ku salaysnayd xagga lacagta. barnaamijka bandhiga iyo tartanka fardaha ee Gamaan ee 6 gobol ee Somaliland u waaweyn oo ku astaysnaa inuu qabsoomo 22 bisha 11aad oo maalin Jimcaha ku beegnayd. sideen wada ogsoonayn waxa dhacday habeenkii Jimcaha iyo gelinkii hore Jimcaha in uu roob u da'ayay oo naxariistii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeyaan ina siiyay. roobkaas wuxuu yara kala go'ay intii u dhaxaysay ilaa 11kii ilaa 4 galabnimo laga gaarayay. markii barnaamijkii oo loo ballansanaa waxa weeyaan inuu bilaabo 4 galabnimo la furay la bilaabay waxa dhacday in roobkii uu waxa weeyaan haddana dib u soo laabto oo hogashii ay curato. garoonkii farduhu ay ku tartamayeen ama ku ordayeenna uu dhiid noqdo. sidaa darteed barnaamijkii waxa galay hakad baa galay. taas waa la wada ogsoonaa. waxaan maanta insha Allah ta'ala halkan u taagannahay inaan dib ka iclaamino oo bulshada aan ogeysiino waqtiga uu qabsoomayo barnaamijka insha Allah ta'ala waana maalinka Jimcaha ee soo socota.
marka labaadna waxa weeyaan waxaanu iclaaminaynaa maanta oo arbaca ah bishuna ay tahay 27 bishii 11aad 2019 in si waafiya oo ballaaran oo waxa weeyaan barnaamijkaasi u qabsoomi doono 29 November 2019 insha Allah ta'ala iyo 3 galabnimo iyo stadiumkeennii aynu hore isugu aragnay la isugu yimi insha Allah waxaan rajeynayaa inuu noqon doono mid ka duwan kii hore dadkuna ay aad u xiiseyn doonaan wax ku cusubna weeyaan dalkeena runtii barnaamijka oo la ballaarin doono meel walba Soomaaliland ka midana insha Allah la geyn doono waxaan leeyahay qof kasto ama xiiseynayay ama qof kasto inuu doonayay in magaranaysa anagoo tixgelinay cabashadooda bulshada waxaan leenahay insha Allah ka soo qayb gal wanaagsan iyo Hargeysa Stadium qiimo 3,000 shilin mar labaad baan idinku celinayaa insha Allah waxaan leeyahay ka soo qayb gal wanaagsan insha Allah amiin maxamed axmed TV-ga caalamiga Universal Hargeysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa kulan ku yeeshay qaar kamid odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku nool magaaladaas ka qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay inay taageersan yihiin tiro dhimista baarlamaanka maamul dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Maxuudin Xusni kulankan odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maanta ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxa ay kaga hadleen arinta ku saabsan soo xulitaanka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markii waqtigoodii uu dhamaaday xubnihii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed oo tiradooda gaaraysay 149 mudane madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dhawaan ka hadlayay soo xilitaanka xubnaha baarlamaanka waxa uu sheegay in xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ee dhawaan xulitaankooda lagu gudgali doono tiradooda lagu soo koobayo 95 mudane halkii hore ay ka ahaayeen 149 mudane odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ee maanta kulanka yeeshay ayaa ku taageeray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ee la soo xulayo tiradooda laga dhigo 95 mudane sida dastuurka Koonfur Galbeed uu qorayo kulanka markii uu soo dhamaaday kadib waxa saxaafadda la hadlay Malaaq Daaro Yacquub oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo faahfaahinaya waxyaabihii kulankooda ay ku lafagureen muddooyinkan la dhaafay ma infadiyana sidii baarlamaankii Koonfur Galbeed liin wajah lahay miiska ma insaarnaayay lama qodob lamada qodobna haayeen dastuuri lamada qodob ma haayeen dadka ma yaraayeen 149 xubnood oo baarlamaankan Koonfur Galbeed 40 sano la ka aan maali helan dhaafay waa dastuuri oo ma lahaayeen qalaasadii dideeda qodobka 6aad farqadiisa iyo sheeqasa inay qalaan galno odayaashana doorshato wal Allah walaa qalaan qal siyaasadeed iyo dhibaato bulshadeed inshaana in iyo ka hor tagaan dadka saasa ka doodayaan dadkoona may lahaayeen qodobka 30aad qodobka 37aad farqadiis lama iyo may lahaayeen iyona sagaalon ishan ya ka qoran dastuurka rane gorfaan dheer iyo iska dabareeg badan odayaasha dhaqanka ma iska raheena reer Koonfur Galbeed sagaalon ishanti in la kanago dastuurkii lahan hogaansamo la kanago ya go'aansadeen maalintii bil 27 hayti ya go'aansadeen maalintaasi go'aan maylis kala deeray 95 xubnood golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed inay isu naqdo taas go'aan waay maynin hersana qaybsigi maynin hersana sidii walin qaybsada lahay sidii wallu ku weela lahay waxa ay koontadii haweenka waxyaalahaas oo dhan magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah Koonfur Galbeed ayaa waxa iminka aad looga hadlahayaa soo xulitaanka baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed iyadoo meelaha qaarna laga dareemayo ololaha ku aadan xulitaanka xubnaha baarlamaanka Maxuudin Xusni Universal TV Baydhabo maamulka gobolka Banaadir ayaa la gaarsiiyay deeq loogu talagalay in lagu taageero barakacayaasha ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka Banaadir mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay deeqda gaarsiin doonaan dadka danyarta ee ay saameeyeen roobabkii ka daay caasimadda Soomaaliya Muqdisho warbixinta ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaheena Cumar Maxamed Soomane deeqdan ayaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir waxa loogu talagalay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir
gargaarkan oo isugu jira dhar maacuun marakaneecooyin iyo teendhooyin waxaa lagu caawin doonaa dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha ku nool degmooyinka gobolka kuwaas oo ay saameyn lixaad leh ay ku yeesheen roobka xilliga dayrta ahaa ee ka da'ay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya xamse saciid xamsa ayaa gudaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho warbaahinta ugu warramay isagoo deeqda ku wareejiyey gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana uu sheegay in wasaaradda ay ugu talagashay dadka ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan u joogaa inaan ku wareejiyo agab oo bini'aadanimo gobolka banaadir oo loogu talagalay barakacayaasha oo waxyeelayeen roobabka ka da'ay magaalada muqdisho waxaa isku jiro alaab nooc teendooyin bustayaal iyo alaab kale iyo raashin isku jiro aan ku wareejinay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa wasaaradda gargaarka xukuumadda dalka uga mahad celiyey deeqdan maanta maamulka gobolka banaadir lagu wareejiyey waxaana gudoomiyaha uu sheegay in wax weyne ay u tari doonto dadka barakacayaasha iyo kuwa danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka gaar ahaan kuwii ay dhowaan saamaynta ku yeesheen roobka xilliga dayrta ee ka da'ay magaalada muqdisho waan kala wareegnay wasiirka iyo wasiir dowlaha iyo ku-xigeenkiisaba isla maanta ayaan rajaynaynaa inaan gaarsiino dadka aad ugu baahan oo loogu talagalay gargaarkaas isaga ah wasaaradda iyo howlwadeennadeeda wasiirka iyo wasiir dowlaha ee ku-xigeenka iyo howlwadeennada wasaaradda waa uga mahad celinaynaa gargaarka ay la soo gaareen oo hordhaca ah dadka ku waxyeeloobay magaaladan muqdisho hay-ado kale ayaan ayadana sidoo kale ka rajaynaynaa inay wax naga soo gaaraan annaga lafteennu waxaan heli karno ayaan la gaaraynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan si degdega wax ugu qabanno u samata bixinno dhammaan dadyowga ay dhibaatooyinku soo gaareen sidoo kale waxaan ka saaraynaa goobaha biyuhu ay buuxiyeen hadday ahaan lahaayeen waddooyinka iyo meelaha biyo fariisinada sida waraha oo kale bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaan ugu baaqaynaa inay gacan nagu siiyaan badbaadinta dadka marka roobabka nuucan oo kale ay yimaadeen ama ay ku timaado khatar kasta oo mataqaanaa soo gaarta dadka halkan ku nool bulsho iskaashata ayaa horumar gaarta deeqdan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen qayladhaanta xooggan ee ka imaanaysa dadkii ay saamaynta ku yeesheen roobka xilliga dayrta ahaa ee ka da'ay magaalada muqdisho waxaana roobabka sanadkan lagu xasuustaa in waxyeelada ugu badan ay ka soo gaadhay dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha ku nool degmooyinka gobolka banaadir qaarkood cumar maxamed soomane universal t v muqdisho qaar ka mid a dadkii ay saameeyeen fatahaadii biyaha webiga shabeelle ee gobolka hiiraan ayaa la gaarsiiyey deeq lacageed oo kaga timid qurbajoogta soomaalida ee ku nool magaalada melbourne ee waddanka australia warbixinta ku saabsan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray waryaheena maxamed cismaan makaraan kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ujeedkiisuna ahaa shirkadda xawaalada ammaano oo kaashanaysa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiiyeen dadka ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ee hadda bilaabay inay ku soo laabtaan xaafadaha ay hore uga barakaceen dadka ayaa guryahooda waxaa burburiyay fatahaadda waxaana qaarkood ay u baahan yihiin lacago ay dib u hagaajin ugu samaystaan iyadoo taa laga duulaya ayaa shirkadda xawaalada ammaano waxay maanta u qaybisay qoyskiiba $50 oo lacagta Mareykanka deeqdan lacageed oo ka timid dalka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne ayaa waxaa la soo marsiiyay shirkadda xawaalada ammaano madaxa shirkadda xawaalada ammaano ee gobolka Hiiraan Xasan Ibrahim Xalane ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan lacageed ay maanta u qaybiyeen dadka ku soo guriyo noqonaya xaafadaha ay fatahaadda ka barakicisay waxaan halkan idinku qaybinaynaa adikoo ah dadkii guryo xaafadaha ku soo guriyo noqday lacag ay soo dhiibeen walaalaha Soomaaliyeed Australia magaalada Melbourne idinkana dhibaatada Allah idinka saaro iyagoo aanan joogin beledweyne ayay idin xuseen oo dhul qaboobaa joogo idinkana wixii leeyahay Allah idin barakeeyo qaar ka mid ah dadka la gaarsiiyay deeqdan ayaa ka mahad celiyay waxaana ay u duceeyeen walaalihii deeqdan u soo dhiibay dadka walaalaha oo qurbo joogta oo banaanka jiro oo anagoo dhiiqo ku jirno lacagta noogu soo dhiibay ammaano noogu soo dhiibay lacag fara badan noogu soo dhiibay waa u mahadnaqinaynaa mahad ilaa ka gaarto dambigooda Allah dhaafo walaalo jiro waa aad iyo aad bay noo garab qateen
ammaanay noogu soo dhiibeen lacagtaas barada badan leh alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin aniguna waa u mahad celin assalaamu calaykum waraxmatullahi maxaa lagu soo gaarsiiyey adiga lacag konton doolara laysoo gaarsiiye mahad celina ugu celinayaa dadka qurbo joogta lacag fiican konton doolara laysoo gaarsiiye waa mahad celina waa u duceynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim walaalaheena oo qurbo joogta mahad weyna u noqnay noogu soo shubay ammaano saaka halkaas loogu qoydiyey xaafadda la yidhaaha dhagax jibis yihiin lacagta waxaa wataa kaan degannahay dhiiqadaan ku dhex jirnaa $50 la siiyey waa ku mahadsan yihiin nimanka noo soo dhiibay tan iyo markii ay bilaabatay fatahaadda ku dhufatay magaalada beledweyne dadka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga soo gurmanaya wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa si ay u samata bixiyaan walaalaha reer beledweyne oo ay biyuhu si lama filaan u qarqiyeen maxamed cusmaan makaraan Universal TV beledweyne magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay barnaamij indhaha loogu fiiqayay qaar ka mid a dadka ku nool gobolkaas barnaamijka qaliinka indhaha ayaa waxaa hirgeliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Australia warbixinta ku saabsan waxaa magaalada boosaaso inooga soo diray wariyaheena Maxamed Madani mashruucan oo ah mid si lacag la'aan aqaliino iyo daweyn indhaha loogu samaynayo 1200 oo qof oo ku nool Puntland waxaa fulinaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Australia qaybtii ugu horeysay ayaa qalliimo iyo daweyn indhaha loogu sameeyay isbitaalka Manhal ee magaalada Boosaaso dad tiradoodu gaarayso 300 oo qof kuwaas oo ka kala yimid deegaano ka mid ah gobolka Bari maxamuud ma dadka Boosaaso magaalada dhexdeeda ka yimid baa tahay mise meel ka baxsan waxaan taqaatiir baa tibaan waxaan ka ilmeer dheer xageegtay magacada meel bargaya ma masuuliga barga waa gartay waa maqlay gardafo weeye dad Soomaaliyeed oo jaaliyadda Soomaaliya Australia ayaa hawshan wada si bilaash abeed waxay ugu tala galeen in dadka Soomaaliyeed walaalaha dalka ku sugan marka maxaa fariin u dirasay waa fariin u bixinayna mahad weyn baan u celinayna ilaahay baa mahad leh inkastoo hadii waa dadka iska batay wuxuu keeneen oo sidaas dadkii u soo daneeyeen mahad baan u celinayna waxooda dalkii dawladda Allah ku amiro waxaan ka mid ah dadka qalliinka loo sameeyay marka uu horeeyo ilaahay baan ku mahadinaynaa mahadda ilaahba iskale marka xiga intii soo abaabushay iyo dhaqaatiirta noo timi mahad iyo waan uga celinaynaa qalliimada iyo daweynta indhaha ayaa waxaa sameynaya dhaqaatiir takhasus u leh xaaladooda caafimaad waa dadka waad arkaysaa aadba u jeedaa oo dadka ay waraysateen dadkaas 100% weeye maanta dadkii indhaha lahaa shalay la hagayay ee gacmaha lahaayay qof walba isagaa soconaya oo gurigiisa aadaya masquushii gelaya dhibaatadii iyo culayskii ay dadka maartay ku hayeen ilaa dad indhalaba ay u hayeen moogtay muqsin ma geli karaan bahana iska ma arki karaan maxaa ma qabsan karaan maanta iyagaa soconaya cagahooda ku soconaya nin walba qof meeshiisa buu aadaya muqsishiisa isagaas maamulay qof walba Cabdicasiis oo madax ka ah mashruucan ay ku deeqday jaaliyadda Soomaaliyeed Australia ayaa sheegay in tirada ay qorsheeyeen markii hore ay aad uga bateen dadka loo fuliyay hawshan caafimaad alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshu si fiican ay u socotaa maanta waa maalintii saddexaad oo qalliimada ay socdaan sidaad arkaysid waxa hadda laga fiiqay bahasha saarnay dadkii shalay qalitaanka loo sameeyay aragoodina oo u soo noqday waa sii wadayna hawsha qorshayaashiina kale ee boos ay ku kooban tahay hawshan mise meelo kale ayaa laga yaabaa Puntland inaad hawshan ka sameysaan ma insha Allah maanta ilaa caaw qalinka halkan buu ka soconayaa aroortii waa sidan oo kale dadkii loo fiiqay ilaa maanta ilaa caawa laga fiirinayo indhaha checkinki kadibna waxaan aadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo magaalada Gaalkacyo oo tiro intan la eg aan sidoo kale ka fulin doono caafimaadka haddii Ilaahay yiraahdo adduunkana Ilaahay inuu ugu nimcayo aakhirada jannada يا إلهي أدوكنا أقول معي آخرنا إلهي جنة أو حاج وقال إن شاء الله ضدك ودنكينا دلكينا دتكينا وشخية it's a blessing الدنيا آخرة وشخيستا ضدك الله هذا الدعاء ذا كسرنا and we've got mixed feelings emotional at the moment or I'm extremely happy the surgeries were a success and inshallah next year bigger and better hawshan ay wado jaaliyadda Soomaaliyeed ee indhaha loogu qalayo ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Puntland ayaa la filayaa in sidoo kale laga sameeyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Maxamed Madani Universal TV isbitaalka Manhal magaalada Boosaaso magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay barnaamijka shaqo abuurka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah shirkadaha iyo ganacsatada gobolka
barnaamijka shaqo abuurka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka galmudug warbixinta ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo inooga soo diray waryaheena liibaan cajiib xaaji xilli shaqo la-aan baahsan ay ka jirto deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan magaalada gaalkacyo kuwaasoo badankooda ay haystaan dhallinyarada kasoo baxday jaamacadaha ku yaala dalka ayaa haddana waxaa bilowday qorshe xoogan oo la doonayay in shaqo abuur loogu sameeyo dhallinyarada iyadoona la wada kulansiinayo shaqo doonaha iyo shaqo bixiyaha kulankani shaqo abuurka loogu sameynayay dhallinyarada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa care international iyadoona ay goobjoog ay ka ahaayeen madax ka tirsan maamulka galmudug dhallinyarada iyo qaybaha bulshada ee ku nool magaalada gaalkacyo shaqadoonayaasha kulanka ka hadla ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan barnaamijkani islamarkaana ay ugu mahadcelinayaan cid kastoo soo qabanqaabisay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha galmudug cumar cabdi maxamed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqo abuurka loo sameynayo dhallinyarada sanadkan shaqo la-aan ayna weli sii jirto dadka inta badan shaqo ma helin halkaas caqabadaha ka jira waxaan ka codsanaynaa shirkadaha runtii qaata shaqaalaha in horeba si loo sheegay dadka ay qaadanayaan ay ku qaataan xirfadooda oo runtii aysan si leexsan aysan u qaadan ama mutaacayida kula socdaa sidoo kale waxaan kubnigaraynaynaa runtii cid kastaahi oo mas-uul ama ha ahaado ama kambani ha ahaado oo qof shaqadoona runtii arkaya inuu mas-uuliyad iska saaro cabdiqaadir warsamo oo keer ka tirsan ayaa sheegay inay ka go-an tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug madasha maanta aan joogno ujeedkeedu ay tahay inay isku arkaan loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha marka faa'iidada maanta meeshan loo fadhiyo waxaa kow ka ah qofka inuu barto qaabka horta shaqo loo raadiyay inuu barto marka koowaad waxaan u sheegnay dhallinyarada shuruudaha inay ka mid tahay qofku inuu horta marka koowaad CV leeyahay inuu xirfad leeyahay xirfaddii haysto shahaadadeedii qofkii uu garan karo kambaniga maanta meesha kambaniyada maanta meesha fadhiyo kambaniga xirfadeeda uu leeyahay midda kalena in lagu kobciyo dhallinyarada aanan shaqaynin in maaragtay nambarkooda la yareeyana iyadana waa loo galleeyahay sidoo kale in amniga deegaanka iyo guud ahaan tahriibka dhallinyaradana inay yareyso ayaa looga galleeyahay qaar ka mid a dhallinyaradii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa sheegay run-ahaanti waxaan rajeynayaa inay noqon doonto shaqo abuurkii ugu wanaagsanaa oo loo sameeyo dhallinyarada mudug run ahaantii waanu ku faraxsanahay maanta inaan ka mid noqdo dhallinyarada mudug oo maantay kasoo qayb gashay barnaamijkan waxaa barnaamijka keliya aan lagu qaban gobolka mudug ku faraxsanahay barnaamijkaas dhalinyarada gaalkacaydaana waxaan haysay shaqo la-aan aad u baahsan oo taasoo anaga wax soo barnay haddana aan haysan fursad waxbarasho fursad shaqo aan ku helinin marka barnaamijkan maanta waa mid aad noo xiiso geliyo ahaa run ahaantii mid aniga aan weli ka qayb gal maahan mid igu horeysa camal aan ka qayb gal ahaa aniga marka kulli taariikhda margooni oo qor doona liban cajiib xaaji TV Universal magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kuna lagaga hadlaya kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee ku aadan arrimaha amniga iyo nabadgelyada wadanka Soomaaliya ka qaybgalayaasha kulanka ayaa ka hadlay qaybaha kala gedisan iyo waliba wadooyinka ugu wanaagsan ee dumarku ay kaga qayb qaadan karaan nabadda warbixinta ku saabsan waxa inoo soo diray waryaheena Maxamed Cali Wehliye kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ujeedkiisuna ahaa wacyigelinta dumarka iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda iyo horumarinta dalka ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka la taliyaha dhinaca istiraatiijiyada ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdullaahi Maxamuud Nuur la taliyaha dib u dhiska istiraatiijiyada ururka haweenka qaranka ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin dawladda Soomaaliya Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inay baahiyaan nabadda iyo dib u dhiska dalka waxay astaahilaan inay helaan xuquuqahooda uu siiyey Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kaamil ah inay helaan xuquuqda shareecada Ilaahay ay siisay gabadha Soomaaliyeed oo ah inay hesho nabad inay hesho nolol inay ubadkeeda si xaqa ku xanaanaysato inay cunugeeda iskuul u dirato inay cunugeedu u barbaaro inay gurigeeda la degto oo fiyoora leh
gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa ujeedka kulanka warbaahinta u sharaxday waxa xaqiiqo ah qofna inaysan hadiyad ku keenayn in dalkan uu nabadoobo waxay u baahan tahay in dad u istaago dadka ugu mudan inay ka shaqeeyaan waa haweenka si ummaddu ay isaga dhaxasho aayatiin iyo dawladnimo sida awgeed riwaayadan oo ay soo abaabuleen dadjirayaasha nabadda ee ururka haweenka qaranka waxay xambaarsan tahay message weyn ay xambaarsan tahay oo ku saabsan sidii dumarka Soomaaliyeed ay u dhisi lahaayeen dalka sidii dumarka Soomaaliyeed ay u dhisi lahaayeen dawladnimada sidii dumarka Soomaaliyeed ay dalka u nabadayn lahaayeen waayo xabadii iyo xoogii iyo isboobkii iyo burburkii waa laga soo baxay hadda banaanka ayaan waxaan u taaganahay in dalka lagu qiimeeyo qof walba waxqabadkiisa hadduu yahay dumar iyo hadduu yahay rag Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadkii ay saameeyeen fatahaadii biyaha webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan ayaa la gaarsiiyay deeq lacageed oo kaga timid qurba joogta Soomaalida ee ku nool dalka Suudaanta Koonfureed warbixinta ku saabsan waxa baladweyne inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cismaan Makaraan ilaa 600 oo qoys oo kamid ah dadka ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa la gaarsiiyay deeq lacageed oo ka timid koonfurta wadanka Suudaan taasoo ay soo aruuriyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaasi deeqda lacageed ee la soo gaarsiiyay baladweyne waxaa loo soo wakiishay Xaaji Muuse Cali oo kamid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka South Sudan waxaana loo qaybiyay ilaa 600 oo qof oo kamid ah dadka ay saameysay fatahaadii dhawaan baladweyne ku dhufatay Xaaji Cusmaan Dhagaxow Haaruun gudoomiyaha guddiga gurmadka ganacsatada baladweyne ayaa ka hadlay deeqdan lacageed iyo dadkii la gaarsiiyay maanta waxaanu halkan u joognaa dad walaal ah oo ka damqaday dadka baladweyne fatahaadda biyaha ku soo baxeen oo dhibaatadu gaartay ayaa dad walaaloo ka damqado South Sudan jooga South Sudan waad garanaysaan soo ma koonfurta Sudan lacagta iska soo ururiyeen waxa weeye $30,000 ayay ugu tala galeen 600 oo qoys oo halkan fadhiya inay ku quudiyaan waxay u soo dhiibeen gudoomiyaha jaaliyadda South Sudan Xaaji Muuse Cali Basar oo garabkayga taagan oo u jeedaan iyo ninkaan odayga oo isaguna jaaliyadda ka tirsan oo la yiraahdo Maxamuud Xasan Cawaale ayaa keenay lacagtaas $30,000 lacagtaas waa lacag adag waxay ugu tala galeen inay walaalahood dhibaatada maanta ay wax uga badbaadiyaan Xaaji Muuse Cali ayaa isla dhinaciisa waxa uu ka hadlay kaalmadan dadka ay ka soo ururiyeen iyo sida loo gaarsiiyay dadka reer baladweyne gaar ahaan 600 oo qoys oo maanta ay lacagta u qaybiyeen jaaliyadda South Sudan waa jaaliyad Soomaaliyeed aad idinkaga fog juqraafi ahaan laakiin qalbi ahaan idin dhow idin la damqatay dhibaatada fatahaadda webigu keenay ka damqatay wax badan inaysan keenin waa laga yaabaa laakiin is-xasuusashada iyo la damqashada walaalka ayaa muhiim ah waxaan kaloon idin xusuusinaa jaaliyaddaanu inaysan ahayn markii ugu horraysay oo ay gurmadada noocaana ay ka qayb gasho fatahaadadii horena waa ka qayb galeen dabeelihii bariiqay ka qayb galeen zoobe qaraxi ka dhacay ka qayb galeen 6 sano la soo dhaafana weliba jaaliyaddaas waa jaaliyad ku sugnaaday xaalad ganacsi oo dhib badan sidoo kale waxaa deeqdan lacageed loo qaybiyey bukaano jiifa isbitaalada kala duwan ee magaalada baladweyne waxaana loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dadka ay sida weyn fatahaaddu u saameysay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideysta deeqda lacageed ayaa u mahad celiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee koonfurta Suudaan waxaana ay sheegeen xilli ay dhibaato ku jireen inay garab istaag u muujiyaan risaqala wasiyo qeyr janna la siiyo adduunkana fi nabca la siiyo dembigoodii kii waalidkooda la dhaafo annagana loo afro waxaan cunnay ayagana ijir Allah ka siiyo faatax siiyeen walaalo jiro oo joogo Allah ka dhigo irsaqaas aan cunayne wax daawala Allah nooga dhigo amoolaan leenahay curyaan leenahay wax xoog lahaan leenahay waana soo gaartay mucaawinadaas ayna soo gaarsiiyeen walaalahayn waana soo gaarsiiyeen ijir iyo xasanaad aan la koobi karin Allah ka siiyo Maxamed Cismaan Makaraan Universal TV baladweyne aad u mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cismaan Makaraan oo warbixintaas inooga soo diray magaalada baladweyne
wararka iminka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in lagu qabtay kuna lagu daahfurayo mashruuc lagu xoojinayo dhaqaalaha dadka danyarta ah barakacyaashii waliba qaxootiga isla markaana loogu talagalay in lagu caawiyo dadkaas warbixinta ku saabsan waxaa Jigjiga inooga soo diray wariyaheenna Ibrahim kulankan lagu daahfurayo mashruucan uu maalgelinayo midowga Yurub ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka maamulka deegaanka Soomaalida hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ee ka howlgala dalkan Itoobiya mashruucan istiid ee xoojinta arrimaha dhaqaale bulsheedka iyo fursadaha shaqo abuurka ee qaxootiga iyo bulshada ku nool agaarka qaxootiga la dejiyay gobolkan faafan ee dawladda deegaanka Soomaalida oo ay fulinaysa hay'adda Mercy Corps iyadoo kaashanaysa hay'adda DRC ayaa ah mashruuc ku mudaysan inuu socdo 44 bilood isla markaasna ay ka faa'iideysanayaan 450,000 oo qof oo isugu jira qaxootiga ku dhaqan goobaha qaxootiga ay ka degan yihiin degmooyinka gobolkan faafan iyo bulshada ku dhaqan agaarka xiriyaha qaxootiga ee gobolkan faafan Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo munaasabadii daahfurka mashruucan kamid ahaa madaxdii halkaasi ka hadashay ayaa ugu horeyn xusay taariikhda magan martigelineed ee dalkan Itoobiya u fidiyo dadka cidhiidhiga nololeed dareensan ee dalkani u soo magan doonta. As you know, Ethiopia has a long history of welcoming not only refugees but in general people in distress. That family history of receiving people